ninna ha xukumina inaan laydin xukumin waayo xukunkii aad ku xukuntaan ayaa laydinku xukumi doonaa oo qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa saxarka isha walaalkaa ku jira maxaad u aragtaa dogobka ishaada ku jirase aad u fiirsan weydaa sidee baad walaalkaa ugu odhan doontaa idaa saxarka ishaada ku jira aan kaa saare oo dogob baa ishaada ku jireen laba wajil layahow horta dogobka ishaada ku jira iska saar goortaasaad bayaan u arkaysaa inaad saxarka isha walaalkaa ku jira ka saarto waxaa quduuska ah eeyaha ha siinina luunkiinana doofaarada hortooda ha ku tuurina si ayan ugu tuman oo ayan idinku soo jeesan oo ayan idinkala jeexjeexin weydiista oo waa laydin siin doonaa doona oo waad heli doontaan garaaca oo waa laydinka furi doonaa waayo mid kasta oo weydiista waa la siiyaa kii doonaana waa helaa kii garaacaana waa laga furi doonaa ninkeeneebaa haddii wiilkiisu kibis weydiisto dhagax siinaya ama hadduu kalluun weydiisto abeeso siinaya haddaba idinka oo shar leh haddaad garanaysaan inaad hadiyado wanaagsan carruurtiina siisaan intay ka badan ayaa aabbihiina jannada ku jira wax wanaagsan uu siin doonaa kuwa isaga weydiistaa haddaba wax kastoo aad doonaysaan in laydinku sameeyo idinkuna sidaas oo kale u sameeya waayo kanu waa sharcigii iyo nebiyadii iridda cidhidhsan ka gala waayo iriddu waa weyn tahay jidkuna waa ballaaran yahay kan xagga baabi'idda u kaca oo kuwa ka gala waa badan yihiin waayo iriddu waa cidhidhsan tahay jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kaca kuwa helaana waa yar yihiin iska jira nebiyada beenta ah kuwa idinku imanaya iyagoo qaba dharka idaad laakiin hoosta ka ah yay wax boobaysa midhahooda ayaad ku garan doontaan canab ma laga guraa geed qodxan leh berdana ma laga gurayo maarugga sidaas geed kasta oo wanaagsan midho wanaagsan u dhalaa geedka xumina midho xun u dhalaa geed wanaagsan midho xun ma dhali karo geed xumina midho wanaagsan ma dhali karo geed kasta oo aan midho wanaagsan dhalin waa la jaraa oo dabka lagu tuuraa sidaa darteed waxaad iyaga ku garanaysaan midhahooda ma aha qof kasta oo ugu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyada jannada gelaya laakiin kii sameeyey doonista aabbaheeda jannada ku jira kaasaa gelaya maalintaas qaar badan baa igu odhan doona rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jiniya ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoogla ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaalow haddaba qof kasta oo erayadan maqla oo yeelaa waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli leh oo gurigiisa ka dulcisay dhagaxa roobkii ayaa da'ay daadkiina waa yimid dabayshiina waa dhacday wayna ku dhaceen gurigaas ma uuna dumin waayo waxaa lagu dulcisay dhagaxa qof kasta oo erayadan maqla oo aan yeelin waxaa loo ekaysiinayaa nin doqon ah oo gurigiisa carada ka dulcisay roobkii waa da'ay daadkiina waa yimid dabayshiina waa dhacday wayna ku dhaceen gurigaas wuuna dumay dumidiisuna waa weynay waxaa dhacay goortii ciise hadalladan dhameeyey in dadkii oo dhammu waxbariddiisa la yaabeen waayo wuxuu wax u baryey sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culummada